tababar ku saabsan ilaalinta iyo maamulidda cashuuraha ee dawladda hoose ayaa maanta lagu qabtay guriga gobolka ee xarunta gobolka Mudug. tababarkan oo loo qabtay shaqaalaha dawladda hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka, kan degmada iyo mas'uuliyiin kale. tababarkan ayaa waxaa qabatay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Puntland. Mukhtaar Maxamed Jaamac oo ka socday hay'adda UNDP ayaa ugu horeyn ka warbaxshay tababarkan. muhiimadda inta baamka aynu qabanayno waxaa laga faa'iideeyaa mas'uuliyadda howlaha degmada siday u kala leeyihiin tallaabooyin uu ka kooban yahay meertada baam waxay u taagan tahay public expenditure management waa qarashaadka macnaha deegaanka iyo sidii loo maareyn lahaa. midda saddexaad aynu ka faa'iideyno waxa weeyaan qarash bixinta degmada iyo dakhli ururinta inay fahmaan golayaasha deegaanka. muhiimadda aynu baamku wuxuu ka kooban yahay 4 book. duqa degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal ayaa isna ka hadlay tababarkan iyo waxyaabaha lagu baranayo. runtii sida hadda ujeedada la sheegay waxa weeyaan inaynu halka ku baranno muxuu ahayto sida loo maamulayo muxuu ahayto kharashka ama dhaqaalaha dawladda ama ha ahaado yani kharashka dawladda hoose weey waxa laga hadlayaa. dawladda hore waxaan u malaynayaa inayan yani inuu ku jirinin waxa weeyaan canshuurta aan qaadno iyo kharashka ina soo gala oo dawladdu leedahay waxa weeyaan sida loo maamulayo baad moodaa maartay topic-geenu inuu yahay waana topic runtii ay u baahan yihiin muxuu ahayto goluhu iyo muxuu ahayto waaxyaha dawladda hoose oo mataqaanaa shaqeeya ay u baahan yihiin runtii sidii dakhligaas loo maamuli lahaa, sidii loo maareyn lahaa, sidii sharciyadiisa waxyaabo badan oo maartay ku hoos jira hawsha iyada ah baynu isugu nimid. waxaan u malaynayaa sanad walba tababar la bixiyo weeye. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug Axmed Muuse Nuuryare ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid muhiim u leh dawladda hoose. barnaamijkani waa barnaamij qaali ah ku dhaqanka maamulidda kharashka dawladda hoose isagoo sharciyu idinku jira boorsooyinka waa miisaaniyadda oo idinku aad saxiixdeen sanad walba aad dejisaan baad nin waliba nuqul haystaa iyadaa idinku filan inaad ilaashataan keliya ku dhaqankeeda. waxaan waa isbaraarujin ee sharci hadda la idiin suubinaya ma aha. gudoomiyaha ayaa sidoo kale dawladda hoose uga mahadceliyay ka qayb qaadashada dhaawacyadii ku dhaawacmay dagaalkii dhawaan al-shabaab iyo dawladda Puntland ku dhex maray deegaanada xeebeedka ee Puntland. waxaan idinka mahadcelinayaa qoladiinnan dawladda hoose degmada Gaalkacyo waagi dhowdo dagaalku jiray ka qayb qaadashada aad ka qayb qaadateen oo aynu ka wada qayb qaadanay oo ilaahay hadda aynu gacanta ku hayno dhaawicii hawshiisuna socoto iyadoo ina ka dhaxaysan aynu gacanta ku wada hayno oo hadda guriga la dejinayo idina aad meel ka wadaan hawshiisa annaguna aan ka wadno inaan iska kaashanana waa rajaynayaa hadda wixii ka dambeeya sida ay inuu ku socoto amniga inaan ka wada shaqeynaa la rabaa. haddaanu isku qaadanay inta dagaal galay inaynu guulaysanay waa inoo bilowday dagaalku shayaadiintii meel la aadi mayaan weliba inayna ka aarsadaan bay isku dayayaan. kadib tababarkan ayaa laga filayaa shaqaalaha dawladda hoose inay isbedel iyo hab maamul oo ka bedelan kii hore la yimaadaan. Axmed Cabdirashiid Axmed, Sam News TV, Gaalkacyo.